waxaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle laga dareemayaa u diyaargarowga ciida iyadoona si weyn shacabka reer Jowhar ay ugu diyaargaroobayaan ciida maraan la kulmay ganacsatada iibisa dharka noocyada kala duwan iyo kabaha ayaa waxa iiga warbixiyeen qaabka ay uga ganacsadaan markii la gaaro ciida magacaygu waa Cabdicasiis waxa ahay dhalinyarada ka ganacsata dharka qaybta tafaariiqda marka ciidan waxa leeyahay ciidihii hore aad ugu fiican tahay waa ciid wanaagsan waaye suuqa aad kala socdaa dadku way faraxsan yihiin xil Ramadaan waaye Ramadaanka tobanka ugu dambeeyay waaye marka dadku way faraxsan yihiin aad wax loo kala gadanaa dharka oo waxaan haynaa oo caruurta waa haynaa dharka waxaan haynaa oo dhalinyarada waa haynaa odayaasha waa haynaa maamulada suldaanka waa haynaa ayuushidan aliin oo liiraada xilwaanada waa haynaa marka boqolkiiba waxaan leenahay insha Allah ciida si barwaaqo iyo nabad Allah nagu gaarsiiyo dadku aad wax u gadanayaan suuqana aad u kala socdaa aduna saxiifi ahaan waa maasanta ciidan iyo ciidii hore maxay kul dugayiin والله horta ciiduhu isku mid waaye markasta oo xilli ciida oo ciid fidriga ama ciid sanfurka aad dadka aad u gataan macnaha waan laga dareemaa saanta suuqa laakiin ciidan ciidii hore waxay ka fiican ciidan dhulka dhiiqa maahan dadku magaalo dhiinka oo banaanka waa laga imaan karaa macnaha waxa fudud suuqyada degmo dhiinka fudud يعني دوق لa'aanta awgeed ما شاء الله waa inkastoo hadda awaar ayaan taasi ciid hore waxaan alxamdulillah hadda xoogaa shaqada waa kala socotaa ciidan iyo ciidii hore maxay kala dugan yihiin waxay kala dugan yihiin ciidii hore abaar ma jirin ciida laba abaar ayaa ka dhacday dadkii waa baahan yihiin si wax loo gadi jir loo mabad dabaaldeg ciidii hore isku mid ma ah maanta abaar jirta masaakiinta loo kaalmeyn dadkii dhaamo akaas waa ciidan iyo hore ما شاء الله إذا هذا وفعنتاي سوين مالمان اللي وفرحنا هذا وفرحنا سبحانه وتعالى. مجيء مركب هورس هو نوح عبد الشيخ. حقيقة دبلدق عيد جوامد يعني ما ركت عادي عادتكم يوجد دبلدق عيان بحاجة العيد وعيد يعني ما ركت فرحة ده يعني ما ركت عادتكم يعاد أي وسوق لاهين سيدا صدرت عيدا سيدا أجنها هاي عرورته يعني عروضة أنت بوعيديسان marka aad iyo aad ay u wanaagsan tahay wax kadashada yani ma aragtay u diyaar galowga ciidan iyo ciidii hore maxay kala dugan yihiin xaqiiqdii ciidan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin waa ciidan waa bil yani ma aragtay barakeysan Ramadaan Kariim ah ay yani ma aragtay ku lamaanan tahay marka sidaas darteed ciidii hore iyo ciidan waxaba ay u mudaabo in ay yani ma aragtay mar walbana aan ognahay inay wax ka gadashada iyo yani ma aragtay u diyaar galowga يعني ما ركتي كبدلنتها أكسونها. مجاعي وعبد القادر أو كمد على حدين صالح وجو حافظة قبل كهير شباب لجارحان من أرض الجوهر. وحنا يركان هذا كمية هركان ليدا وهير شباب سلوا كلا وحن سلونا عند التوحيد بدنا جرمان كالصباحن كالممنوع يساقوي كالدون مدة كالهذا بحاول سعد بساكة عايد شيء ولا ونحقل له بنكا لو تلقى الدمر كاس أقوى عزالة ناس تاسينا شقة وإسكا جرتا هرتوحوا إلهي كانوا وان هاي سنة ما شاء الله ومودنا هي ما دام أرقان لي عيدان عيدهور محي كل دقين والله عيدان عيدي هور وحي كل دقين عيدي هور وحاسو عجيري در معنا لدهايو دمير فرو در لدهايو سو عجيري لكن هذا عيدان در عسيب حتى من السوساري لكن در أورجينال والسك كنا مادام دور واحد أنسوقه كما خلايا فرماج در أيوة الشيء عن كطوش در ريال الشيء وأركنا لكن أنت حكلو أن لكل ماي شعب aad u far badan oo ayagana iibsanaya dharka iyo kabaha waxayna iiga warbixiyeen dareenkooda iyo qaabka ay suuqa uga iibsadaan dharka markii la gaaro ciida waa kuwan qaar kamid ah oo ka hadlaya arinkaasi marka farxadiina bal ka waran ciidan iyo ciid hore ciidana buu farxsanana meela ciid ugu weynid waxa jooga carwada UK waa carwo aad iyo aad raqiis ah ma sha Allah dharkeeda dhar fashion dhalinyarada
dharka modelka ugu dambeeyay ciida ma sha Allah waxa leeyahay dhalinyarada laga faa'iideysto والله هذا وقرب صاحب كمان لحي تمنك maxay gidmaysa hal mar ka dhigaysa 15 ay islaysa yani 13 ka dabixi ka war iyo aqal 14 ka sii kara aad ugu faraxsanahay inay iidan ku iideysto degmada magaalada Jowhar gobolka Shabeellaha Dhexe magaalada madaxdiisa waxa marka suuq saa ka soo doonatay marka ciidan iyo ciidii hore maxay saameyn ay leeyihiin oo kala duwan yihiin maasha Allah ciidani ayaa ka duwan ciidaha kale oo ah ciid yarayda markii la furo soonka ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ay si weyn ugu diyaar garoobaan ama ugu dabaaldegaan maxamed yaasiin mahdi maxamed qalfa Jubba Shabeelle News magaalada Jowhar